waa fatahaado iyo dabaylo iswata oo ku dhuftay gobollada bari ee dalka Liibiya, gaar ahaan magaalada Derna oo qaybo badan oo ka mid ah daadku la tegay. Waxaa ku dhintay kumanaan qof, waxaana jira warar sheegaya in la la'yahay kumanaan qof oo kale, iyadoo ilawareedyadu ay ku kala duwan yihiin qiyaasta tirada dhabta ah ee dhimashada, tiraduna ay marba marka ka dambaysa sii kordhayso. Haddaba si aan wax uga ogaano masiibadani aadka u weyn ee ku dhacday waddanka Liibiya, aynu isdul taagno meelaha ay saamaysay juquraafi ahaan, gaar ahaan magaalada Derna iyo halka ay ka yimaadeen daadadka naf iyo maalba galaaftay. Helicopters pick bodies from the sea, testimony to the power of the wave of water that hit the city. Others were simply swallowed by landslides. The grim task of recovering the bodies. Fatahaaddan ayaa ka timid kadib duufaano dabaylo xoog leh wata oo lagu magacaabay Daniel, taasoo ka soo bilaabantay xeebaha waddanka Greega 5tii bishan Sebtembar. Axaddiina soo dhaaftay ayay duufaantani soo gaadhay xeebaha magaalada Benghazi, iyada oo uga gudubtay dhanka magaalada lagu magacaabo Jebel al-Akhtar iyo magaalooyin kale oo dhowr ah, ilaa ay ugu dambeyntii soo gaadhay magaalada Derna oo ah halka ay musiibadii ugu weyneyd ka dhacday waddanka Liibiya. Derna waa magaalo ku taal xeebta bari ee dalka Liibiya. Waxay leedahay deked, waxaana ku noolaa ku dhowaad 100,000 oo ruux. Derna waxay leedahay deegaan gaar ah oo ay kaga duwan tahay magaalooyinka kale ee Liibiya oo dhan, waxaana ay ku taal inta u dhaxaysa buuraha cagaaran ee Liibiya, badda Mediterranean-ka iyo saxaraha waddanka ku yaal dhexdooda. Magaaladan oo ahayd mid aad u qurux badan, dhaqaale ahaanna dad ladani ay degganaayeen, ayaa badideeduba qarqoontay. Sida muuqaalada laga soo duubay muujinayaanna, waxay u ekaatay mid 10 sano ka hor laga guuray oo bahala galeen ah. Sidoo kale sawirro ay soo qaadeen dadka deegaanka ee ku nool magaalada ay dhibaatadu ka dhacday ayaa muujinayay togag dhoobo ah oo aad u badan, dhismayaal dumay iyo dhammaan xaafadaha oo biyo ku hoos jira. Biyo xidheenkii magaalada u weynaa ee biyaha dooxa ka celinayay magaalada oo kor u dhisnaa ilaa 40 mitir ayay duufaantu soo dumisay. Kadib dadka magaalada ayuunbaa hal mar ku war helay biyo xawaare aan inaba caadi ahayn ku socda oo guryaha ugu soo galay. Kadibna halkaas ayay ku qarqoontay magaaladii Derna. Hay-adda Bisha Cas ee waddanka Liibiya waxa ay sheegaysaa in ilaa 30,000 oo qoys oo reer Derna ahi ay barakaceen. Xukuumadda taagta daran ee Liibiya ayaa iyana codsanaysa in gurmad ballaadhan oo degdeg ah lala soo gaadho dadkooda, inkastoo ay adag tahay in hay-adaha samafalku si dhaqso ah ku yimaadaan sababo amni daraaddeed. Duufaanta Daniel ayaa haatan u sii gudubtay qaybo ka mid ah waddamada jaarka la ah Liibiya, sida Masar oo kale.